waxa ay ka turjumayaan dhaqanka iyo adaabiyaadka iyo akhlaaqdii ay soo bartay jaamacaddu khaasatan jaamacadda marka laga hadlaayo waxbarista iyo barbaarinta waxa u qaabilsan macallimiinta cilmiga sidiisaba marka laga hadlaayo dad badan ayaa ujeedooyin kala duwan u barta ujeedooyinka badankooda marka aad weydiiso ardayda jaamacadaha fadhisa sababta uu cilmi u baranayo kuwa ugu badan ee jawaabta ku soo celceliya ama jawaabta ugu badan ee badana ardaydu dhiibaan ayaa waxay tahay ardaygu inuu raadsado ama uu ku helo wadada cilmiga inuu ku helo nolol ka wanaagsan mid hadda uu ku jiro nolol ka wanaagsan mid hadda uu ku jiro marka uu yiraahdo badana noloshaas dadku waxay xoog ka saaraan qofku inuu shaqo ku helo ama dhaqaale ku helo cilmigaas laakiin cilmigu inta waa ka macno weyn yahay waana ka miisaan badan yahay cilmigu ujeedadiisa guud ee loo bartaa waxa waaye qofku inuu ku hagaajiyo kuna hormariyo naftiisa oo isagu leeyahay marka laga hadlaayo habdhaqanka marka laga hadlaayo go'aan qaadashada marka laga hadlaayo bulshada dhexdeeda qofku magaca iyo sumcadda uu ka tacbanayo marka laga hadlaayo dhaxalka uu reebi doono ee berri uga tagi doono jiilka soo socda muddo ku dhawaad 25 sano ah ayaan ka shaqeynayay bahda waxbarashada oo dhowr iyo 10 sano 15 sano ku dhawaad ay tahay waxbarashada sare ee jaamacadaha ujeedada ugu weyn ee mar walba maskaxdeeda ku taagan waxay tahay in aan anigu dhaxal reebo oo aan reebo arday fara badan oo berrina noqota iyagu macallimiin oo macnaheedu ay tahay in aniga naftirkayga waa lii dhiibay aan helo dadan u sii dhiibo iyaguna qolo kale u sii dhiibo dhaxalka noocaasihi waa waxa sameeya in bulsho ay waarto oo ay hormarto markii qolo walba huwa qolada ka horeysa ay cilmi ka qaadato una gudbiso qolada ka dambaysa waxaan doonaynaa waxa ay tahay in aan maanta la qaybsano farxadda ardayda meesha ku qalin jabinaysa dadka meeshaan isugu yimidi waxay si dadban iyo si toosan labadaba ugu xiran yihiin ardayda meeshaas fadhisa waxaan ka koobanahay macallimiin waxaan ka koobanahay waalidiin iyo walaalo iyo saaxiibo yimid oo u yimid xafladan in ay dadkay jeclaayeen la qaybsadaan maanta farxadda ujeedada isku kaaya keentana waa taas mas'uuliyiinta noo yimid waan u mahad celinaynaa oo waxay doonayaan qaranka ay hogaamiyaan ee qof walba oo xilka gaarka ka haayo in uu ku dhiirigeliyo ardayda meeshaan fadhisa iyo waalidiintooda intaba waan rabnay dad aad iyo aad xilal sare u haaya inaan helno laakiin waad ogtihiin qaran in la maamulaayo wax waaye waqti badan ay u baahan tahay marka way noo suuragali weysay in madaxdii sare sida madaxweynaha aan helno laakiin waan rajaynaynaa idanka Ilaahay in xafladaha dambe ay noo yimaadaan insha Allah ujeedada xafladan waxa ay tahay maanta in aan waqti ku wada qaadano meeshaan oo aan ku wada faraxno xafladana sida sheekhaalow hadaay uu sheegay waan saluuga maanta sababtoo ah dadku way inay hurdayaan u eegyihiin ardadeenni aan sagootinayna waxaan u baahanahay xafladda in la kiciyo waxaan u baahanahay xafladda dadka madaxda ah oo ka hadlaaya in aad iyo aad loo dhiirigeliyo oo loo muujiyo in raali laga yahay imaanshadooda iyo waqtiga ay noo soo hureen bahda Green Hope waxay caan ku tahay runtii hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha guud ee dawligaaba dadka ka shaqeeya ama wadaahi inay yihiin laf dhabartooda ay yihiin oo ay noqdeen kuwa ka buuxa xafiisyada qaybahooda kala duwan anigu waxaan kamid ah maanta ardayda qalin jabinaysa sida uu sheegay sheekhaalow waxaan qaadanayaa PhD-deedii labaad oo aan ku qaadanayo cilmiga falsafada maamulka amniga iyo sirdoonka oo ujeedadiisu ay tahay anigaas aad u jeedaan oo macallinka oo muddada dheer wax dhigayay ayaa wax dhigashadii sii wada wali cilmigu ma dhamaado marka meeshaas waxa kaaga muuqata cilmigu ma dhamaado marka doc ka dhamaysaba doc kale ta ku furan inta aad awoodo oo nafku kugu jirto inaad qalinka aad wadana laga raba ma ahan bachelorka saaka aad qaadateen ama masterka qaateen kaliya ma cilmigu mar walba wuxuu u baahan yahay in kor loo sii fuulo wuxuu u baahan yahay in la baraaliyo wuxuu u baahan yahay dhumucdiisa inaad gasho oo aad ogaato waxa aad dhaaftay ama waxa aadan wali gaarin inaad hesho هذا اللبن مرة صدحان ربا أفران ربا هدي إلى يقدر ونفته وسم معناه إنه حواي إن كنت دالنا علمي إنه نوبل أرتمان ولد أرضيدا وحن لا يهمبليو والدين توحن لا يهمبليو ما ده حدا نقل سوق يبقى سنة وحن لنا عادي هذا تقوم سنتين وقت قاعد نصيسين
waxaan rabnaa inaan farxadan aan u dabaaldegno waxaan rabnaa inaan muujino in aan maaragtay maanta ardaydaas garab taagannahay waxaan rabnaa inaan muujino in aan u mahad celinayno jaamacadeena jiritaankeeda aan u mahad celinayno runta marka laga hadlayo waxaad noqoteen safiiro jaamacaddu ay dirsatay berri dadka markaad dhex gashaan ama waxaad noqon doontaan arday cayn noo soo jiida oo tiraahdo kuwaan yaa wax soo baray inkaarta qaba ama waxaad noqon doontaan arday ammaan noo soo jiida oo tiraahda hebel in la yiraahdo ama gabar heblaaye la yiraahdo ayaan la dhaqmay oo jaamacaddaas ka baxday waa dad aad iyo aad u suuban oo aad iyo aad u toosan labadaas intaba adinkaa soo jiidi kara arday annagu laakiin waxaan rabnaa mar walba inaad magac suuban oo toosan aad noo soo jiidaan aad iyo aad aad u mahadsantihiin hambalyo cilmiga aad barateen ilaahay ha inii barakeeyo mustaqbalkana ilaahay ha noo toosiyo aad iyo aad u mahadsantihiin